marka maanta waxaan rabay insha Allah taala in aan ka hadalno arrinka doorashada ka socota magaalada Minneapolis oo loogu tartamayo qofkii noqon lahaa duqa magaalada Minneapolis. tartankan ayaa ah tartan aad iyo aad u adag bisha November 4teedana waqti badan kama dhinna. marka doorashadan maadaama Jacob Frey oo hadda fadhiya 2 term horena soo fadhiyay oo markii saddexaad uu rabo in uu issharaxo ama issharaxayba oo uu rabo inuu sii fadhiyo meesha, laakiin ninka odayga ah ee isku dayayo in uu meesha ka qaado Jacob Frey ayaa waxa uu yahay wiil Soomaaliyeed ee Cumar Faatix. Cumar Faatix ayaa markii hore endorsement ka helay ama taageero dimuqraadiyiinta qaybta waliba qaabilsan endorsementiga ee DFL, haddana way kala noqdeen kadib markii uu dacwada xareystay Jacob Frey. Jacob Frey ayaa wuxuu noqday markii ugu horeysay mayor fadhiya oo markaa kursiga ku fadhiya oo laga ceyriyo shaqadii ama waaya endorsementiga ama taageerada dimuqraadiyiinta. marka Cumar Faatix ayaa shalay waxa uu helay taageeradii ugu weyneed intii uu hadda tartanka ku jiray, taas oo ka timi Ilhan Cumar oo iyadu saad wada ogtihiinba ah wakiil ka tirsan wakiilada dalka Mareykanka ama House of Representatives ee Washington oo fadhida ayaa waxa ay taageeradeeda la garab istaagtay Cumar Faatix. Cumar ayaa isagu aad iyo aad uga mahadnaqay Ilhan ayaa waxayna ay sheegtay in ay aad ugu faraxsan tahay in ay maanta announce garayso in ay supportkeeda ama taageeradeeda ay la daba taagan tahay mayorka inuu ka noqdo ama duqa magaalada Cumar Faatix. Cumar ayaa saas la mid ah ka mahadnaqay, waxaan aad ugu faraxsanahay buu yiri inaan support ka helo ama garab istaag Ilhan Cumar. so arrinkan ayaa wuxuu noqday Ilhan baa waxay noqotay qofkii ugu cuslaa ugu caansanaa oo siyaasi ah oo soo garab istaaga Cumar Faatix. marka Ilhan maadaama ay leedahay taageerooyin fara badan, dad fara badan ay ku qanacsan yihiin in ay tahay representative-ka matala ama wakiilka u qaabilsan District 5 state-ka Minnesota ama Minneapolis ba, waxay taageeradaas ay siisay Cumar ee ka dhigan tahay in uu codkeedana heli doono iyo dadka iyada ay matasho. saas ayaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo. Jacob Frey dab yar ma shidaayo, isaga naftiisa taageero wuxuu ka haystaa oo endorsement uu ka helay governorka Tim Walz iyo senatorad gobolka Minnesota u fadhida Washington. so laba qof oo culus oo rugcadaaya buu wataa. annagana waxaan wadanaa qofka noogu culus hadaan Soomaali nahay Ilhan Cumar. marka ninkan Cumar ah markaad fiiriso recordkiisa qof champion ah oo wax qabad fara badan soo qabtay, isma laha da'diisa 35 years kaliya ah iyo shaqooyinka uu soo qabtay iyo labadii debate oo hadda la galay wuxuu ahaa qofka kaliya oo mayorka u ordaayo duqa magaalada inuu noqdo oo ka hadlayay arrinka in control lagu sameeyo lacagta rentiga ah. so rentiga ama kirada guryaha lagu kireysto Minnesota, qofka kaliya oo raba in control loo sameeyo oo la xadido ba isaga ah. so waxyaabo badan oo programyo ah oo dadkeed maartay danyarta ah caawinayo ayuu ninkan ka shaqeeyaa. waxaa hadda mar uu hadlayay uu sheegay in Minnesota ay ku nool yihiin laba dabaqad sare oo lacag haysata siyaasiyiin ku xiran oo connected ah iyo dabaqad hoose oo eberkeeda waxba aan haysan. marka programyadii hadda ka hor intuu senatorka ahaa qofka waxa la fiiriyaa Mareykanka waa aragteen siyaasiga markuu meel u ordaayo waxa la fiiriyaa waxqabadkiisii xilligii uu fadhiyay xafiiska. waxqabadkiisii hore waxa kamid ahaa in uu baasiyay sharci dadka maandooriyaha iyo waxaas qaata gaar ahaan caruurta maaragtay maalin kasta nagaga dhimanayso alaabtan overdose-ka in alaabtii lagu ogaanayay uu free uga dhigo community-ga. so testing strips-ka in uu ka dhigo free uga dhigo community-ga si aan lacag looga qaadin qofka intuusan overdose noqonin waxa uu hayga ku yahay lagu ogaado ayuu soo baasiyay. waxyaabo fara badan oo hadda idinka aan maaragtay micno badan idin sameeyeen laakiin oo dadka wax qabad u ah buu soo qabtay. waxaa kamid ahayd in uu lahaa fikradii ugu weyneed oo ahayd in dhalinyarta ama ardayda low income students-ka ah oo lacagta aan haysan college-ka free looga dhigo. programkaas wuu baasiyay. waliba waxaan arkay dad Soomaaliyeed oo ka faa'iideystay oo ardaydii intay ka soo baxeen high school-ka
jaamacaddii aaday financial aidka lacagta yaroo dowladda maaragtay ay bixiso markii laga soo gudbo waxa uu suurtageliyey in ardayda ay helaan low income studentska ay helaan waxbarasho free ah waxaa intaas kasii muhiimsan oo soomaalida aan ku koobnayn arrinka uu ka qabtay uberka iyo liftiga saa ogtihiinba minnesota haddeer marka la fiiriyo meelaha kale oo annaga aan joogno oo kale ama marka loo fiiriyo dalka maraykanka uberka lacagta uu bixiyo per milekii ninkii wuxuu ahaa ka shaqeeyey kuna qasbay in ay lacag fiican bixiyaan odayga maalmihii hore oo dhan intii campaignka lagu jiray intii dagaalka loogu jiray wuxuu ahaa gacanta koowaad dadka uber driverska iyo lift driverska so for this matter Somali kaliya ma qustayso wax kasta qof kasta oo uber wada ama lift ka wada Minnesota waxa maaragtay ay tahay in haddii uu waagaasba la soo shaqeeyey shaqo fiicanna uu ka soo qabtay Minnesota hadda way dhaantaa isteedyada kale marka la fiiriyo rate-ka lacagta wax lagu qaado inkasta oo uber iyo lift ay iska yihiin tuugo oo aan isku haleyn karin haddana marka la fiiriyo dhaqaalaha ay ku bixiyaan dadka lacagta la siiyo darawalada way ka fiican tahay Seattle baysan gaarin iyo New York oo iyagu xoog saaray marka ninkii dhuunta u galay buu ahaa kambaniyada uber iyo lift soona ka soona baasiyey biilka aqalka hoose kuna suntan in aqalka sare uu ka baasiyo marka ninkan waxyaabo fara badan buu maartay xagga community-ga maadaama uu yahay siyaasi ku dhex jira arrimahan buu ka soo qabtay oo community-ga faa'iidooyin fara badan u leh so haddii uu mayor noqdo waxyaabaha labada debate hadda ay galeen markaa fiiriso stay kaligiis ma aha afar baa gashay nin la yiraahdo Reverend Dwayne Davis iyo waxa kamid ahaa iyo Hampton so saddexdoodan afartoodan ayaa mar walba debate-ka ama ilaa 5 qof baa galeysay hase yeeshee ninka maartay Jacob Frey oo ka cabsanayo oo laf dhuun gasho ku noqday oo isaga mar walba la garab fariisiyo waa Umar Fatih marka programyada uu wado waxa kamid ah in meelaha parkska oo kale parka ilmaha ay ku ciyaaraan safe laga dhigo oo habeenkii lagu ciyaari karo sida isagaba uu sheegay waxyaabaha uu wado waxyaabo culculus oo dadka waxtar u leh downtownka oo kale in dib loogu soo celin doono sidii uu ahaan jiray shaqooyinka dib loogu soo celin doono booliiska oo isaga badanaa lagu haysto xilligii ninkii odayga ahaa madoowa ay dileen booliiska Minneapolis ba waxa lagu mar walba Jacob Frey uu ku eedeeyaa in uu ka qayb qaatay in booliiska lacagta laga jaro laakiin isaga wuxuu sheegay debate-kii ugu dambeeyay oo kale markaan fiirino waxa uu sheegay in la rabo in qof kasto hadda qofka maskaxda laga jiro oo kale inaan officer loo soo dirin hubaysan loo soo diro dadkii saxda ahaa ee caawin lahaa marka rentiga in la controlo ninka kaliya ka shaqeynayo waaye booliiska in maaragtay la kala saaro oo qofka dhibanaha ah aan qori nin wata kaliya loo soo dirine loo soo diro dadkii caawin lahaa oo therapist iyo waxa loo sameyn lahaa oo kala qayb inuu ka kala dhigo rabaa inuu ilaahay idmo mayor ahaana qofka ugu cadcad waa isaga hadeer marka la fiiriyo hatta isagoo endorsementigi ay kala noqdeen DFL-ka haddana weli uu cadcad yahay odayga dad muxuu kaloo sheegay in uu ka faa'iiday endorsementiga lagala laabtay oo taageerada ay kala laabteen dimuqraadiyiinta inuu ka faa'iiday oo ay u noqotayba wax fiican oo isaga kor u soo qaaday marka ninkan odayga ah maanta wuxuu u baahan yahay taageeradeena haddii aan nahay Soomaali markii ugu horeysay magaalo metropolitan ah oo noocan ah qof Soomaaliya uu ka noqonayo duqa magaalada bay noqonaysaa oo wax kasto booliiska rentiga guryaha daawooyinka waxaan ay hoos imaan doonaan qof Soomaali ah mid kale waxa bariyahan iyo muuqda I don't know ina daawataan iyo in kale waxa aad iigu muuqda duulaan xoog leh oo xagga nagaga socda YouTube-ka oo dad ka soo furtayba kulay dadkaas wadada Amerikaana ka soo furtay waxa la dhihi jiray qolol ma oranay laakiin YouTube ay ku jiraan videos bay ka soo furteen oo ay ku maagayaan intaas dadka Soomaaliyeed lacag bay dhaceen 75 maanta ugu dambeysay qof baa mid baa video soo gelinayay 75 qof oo Soomaaliya ba la dacweeyay
iyaga oo ujeedkooda uu yahay in ay magac xumeeyaan dadka Soomaalida ah in ay magac xumeeyaan siyaasiyiinta Soomaalida ah in ay ku sheegaan magaalada Minneapolis in la rabo in Muqdisho oo kale laga dhigo marka ninkan odayga maanta wuxuu u baahan yahay kulay taageerada dadka Soomaalida ah especially dadka ku nool Minneapolis inkastoo oo dadka dooranayo aysan ku koobnayn Soomaali oo Minneapolis ka weyn tahay Soomaalida degan iyo dadka kale degan ay kala badan yihiin haddana waxaad moodaa taageero fara badan in uu ku helay weerar lagu qaaday maalin dhaweyto xafiiskiisa oo wax lagu qorqoray oo ka soo horjeeda arrimaha islaamka iyo maaragtay arrimaha qaxootiga oo kale ka soo horjeeda dadka soo galootiga ah oo soo islamophobia iyo xenophobia baa kala yiraahdaa labadaas ereyba way isticmaaleen so ninkan arrimahaas uu ka sii faa'iiday oo de wuxuu helay exposure media inay maaragtay si ay siiyaan coverage extra debateska markaan fiirsado aad iyo aad bay muhiim u yihiin macnaha pointska uu taabanayo sida uu uga hadlayo ninkii Jacob Frey ah waxaad moodaa inuu godkiisa ay biyo ugu soo galeen marka arrinka aan sugayno hadduu Ilaahay idmo November 4 hatta inta ka horeyso November 4 waxaa socda early voting baa socda doorashadii qofka wuu sii codeyn karaa waa sii meel galeen kartaa oo sii diri kartaa ballotkaaga so early voting ka hadeer doorashada early ah meel fiican bay maaragtay maraysaa oo ma liito macna qof kuwan kala ka dambeeya saddexdan kala ka dambeeya so numberkiisa ma xuma hadeer so far dadka sii codeeyay laakiin November 4 insha Allah taala waxa aan isku daynaa oo aan time gelinaaba waa inay ahaataa in aan soo saarano mayor duqa magaalada Minneapolis oo Soomaali ah noqon doonana insha Allah taala senatorkii ugu horeeyay oo Minnesota aqalka sare matala noqon doonana mayorkii ugu horeeyay oo Soomaaliyeed asal ahaan Soomaali ka soo jeeda oo qabta jagada heerkaas oo kala ah so there's nothing stopping this guy hadeer inuu madaxweyne u sii cararo maadaama siyaasi hadda uu yahay laga yaabay inuu madaxweyne ka noqdo maadaama inta uu ku dhashay oo uu xaq u leeyahay inuu madaxweynenimo u cararo so Umar Fatix taageero fara badan buu u baahan yahay insha Allah taala anaguna haddaan Soomaali nahay waa inaan garab istaagnaa come out campaign kasto qof walba ha soo baxo dadow maanta caruurteena iyo mustaqbalkeena baa waxa ku xiran ninkaas in uu soo baxo si ay ugu dhiiradaan inay u ordaan madaxweynaha dalka Mareykanka iyo meelo ka waaweyn oo so yes Ibrahim please vote hala codeeyo codkana Umar Fatix hala siiyo insha Allah taala arrinkan waa arrin muhiim ah yaan la fududeysanin yaan la yareereysanin hadduu Ilaahay idmo intaas ayaan rabaa insha Allah taala Ilhaan endorsementigeeda way ku mahadsan tahay iyo taageeradeeda I hope in aad kulligiin u wada vote gareysaan intaasaan kusoo koobaya hadduu Ilaahay idmo waad salaamantihiin wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. Peace.